inay aadaabta islaamka ka muslimiin wariyaasha ilaaliyaan waa laga doonaya billahi tawfiiq شيء قف كلا يوحوليه هاي هدو قف قال ودلو قف مسلم إسلام مركانا كقاطع حوله كدبنا وصو إسلام محل جيلية ديجي أو قلي حوله وقاطع مقصاص أيا لجوف لنا حوله هنا ما لقى علنا وقف قال كامكو إسلام كدب الحمد لله مايا ديجي مال تنا لقوا مالها نبينا عليه الصلاة والسلام تقال كي يحد مركي قالين عمه حمزة بن عبد المطلب يادلي وحش بادلي وأضانها وهند بنت عتبية يوتين وبلان لو قاضي هدو حمزة دلي إن لحورين أيو وحشي واصو إسلامي مركا كدب نبي عليه السلام بتش علان تيرين وحش هرتي سينو يستاغو وحمزة حسوسية لكن المسلم والمسلمين تاكمدوها مركي دمر الجهاد جهادي والجهاد كل انت نبي وحكى لو كسر صلى الله عليه وسلم إنه يري إلهي لا وقف بو أقصلا oo isdilay oo labadu way jannada galay mid baa muslim aha jihad buu aaday mid gaal ah dilay kaasi jannu aaday kii gaalka waa soo islaamay isagana jihado la dilay isna jannu galay labadoodii isdilay baadana jannada isugu tagay kan wax dilayay hore baa gaal ah markuu wax dilay kadib soo islaamay walidaalika dadkii reer Makka soo islaamay ee Uhud joogay ee Khandaq joogay ee intaas oo dhacda soo joogay ciddig iyo maal loo qabsaday من مجرات وبالله التوفيق داود الولي waxaan dhexda ugu jirnaa barnaamijkii kulanka Shibili Somali Channel oo ah barnaamij toddobaad la oo inkaga imaado studio labaad TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi qof alaali qofkii doonaya in sheekha uu su'aal soo weydiiyo wuxuu nagu soo hagaajin karaa ciwaankeena waa kulanka Shibili @somalichannel.tv iyo page-ka Facebook ku leenahay waa kulanka Shibili Somali Channel sheekh